muddooyinkii u dambeeyey waxaa la isla dhex marayay xogo ku aadan in madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi aanu doorkan mar kale sharaxnayn taas oo la saadaalinayay isbeddel dhanka musharaxnimada xisbiga kulmiye ah. haddana warkaas ayaa madaxweynuhu caddeyn aan waxba ka jirin oo mar kale uu taagan yahay isagoo jeediyey khudbadu muuqatay in durba uu bilaabmay ololihii doorashada dhici doonta bisha November sanadkan dhammaankiisa. haddaba waa kan hadalladiisii qayb ka mid ah oo dabcan aanu idin dhegeysiin doono. waxaan ballan qaadaynaa doorasho tartan hufan edeb leh turaalo leh oo dalka la gala ayaa kulmiye laga helaya natiijada oo la aqbalo. waxaa lagu yidhahdaa maxaad ereyga ugu celisaa daran horaan qaba tii horaan ogaa wixii dhacay iyo halkan nala martay dadka qaarkii weli inay ku dhigan tahay inaan tii hore laga helin baa ayaa laga yaabaa inay qabaan ama ay ku dhaqmaanba. markaynu intaan hore soo qabanno doorasho hufan edeb leh turaalo leh dadka codka wax loo weydiisanayo natiijadana waa in la aqbala. nin kale aqbali maayo hadday shan codayso waa beenta ood aqbali gar baa ku qabtay oo shicibkaa kula hadla anaguna shicibku hadduu idhaha cod kabsi bayno waxba kaa qabo waa in la hoggaansamaa. aad iyo aad waa mahadsantihiin hawl badan baa inoo taalla tartankaasaynu maanta bilaabaynaa. habluhu intii horena way soo halgameen ragga canaanta badan ku dhici doontaa. shirarkana sidaa uu sheegay guddoomiyuhu waa joogto waa wadayna waa ka soo qayb gelaynaa guddiyaa la samayn doonaa ilaa heer degma ah. hawshaasaa inoo bilaabantay xooguna wuxuu kalsooni badanna waa qabnaa xisbi ahaan iyo xukumad ahaanba inaynu shacabka ka helayno iyada oo si edeb laan waxu weydiisayno. aad iyo aad waa mahadsantihiin. haddaba hadalkan madaxweyne muuse biixi muxuu xambaarsanaa su-aalahaas iyo kuwo kale oo la xidhiidha doorashooyinka somalilan ayuu wariyey talebaan saxansox uu hordhigay mubaarak cabdi ismaaciil oo ah falanqeeye siyaasadeed oo hargeysa ku sugan. waxuu xambaarsanaa hadalkii madaxweynaha ee maantu maalmihii ugu dambeeyey iyo bilihii lasoo dhaafay wuxuu shakiyo muhmal ku jiray yaa musharaxa oo matalaya xisbiga kulmiye doorashooyinka soo socda. waxaan ka warqabnay in madaxweynaha lagu soo doortay shirkii golaha dhexe ugu dambeeya ka dhacay Barco August 2023 oo ujeedadiisu ahayd in isagu noqonayo musharaxa doorashooyinka soo socda. laakiin kadib dhacdadii la sacaanood waxa aad dadku ay isku loo hadalhayay gaar ahaan xisbiga mucaaradka iyo xisbiga kulmiye dhexdiisa madaxweynuhu tartamaya iyo ma tartamayo. marka shirkii guddida fulinta maanta qabsoomay wuxuu si cad u qeexay madaxweynuhu isagu yahay ka tartamaya isla markaana uu la tartamay labada musharaxa kale ee xisbiyada wadan iyo ucid oo iyagu hore shirarka golaha dhexe salahan cirro kale shirkii golaha dhexe 2020 burca ka dhacay lagu doortay shirweynaha xisbiga ee dhacay 2021 Mansoor Hargeysana waxa lagu ansixiyay musharaxnimadiisa Faysal Warabinaysa kadalik. marka murashaxiinta mucaaradku ay cadaayeen wuxuu muumul ku jiray doorashada musharaxa ruling party-ga ama xisbiga kulmiye taas madaxweynaha maanta cadeeyay. marka mubaarak yaa muhmalkay ku jiray maxaa ay yaa wax doonay kalma cid kulmiye ah oo kala doonaysay in musharaxnimada madaxweynaha u tartanto. sida ka warqabno leadershipka kulmiye isbedelay oo August 2023 shirkii burca ka dhacay golaha dhexe isku bedelay oo wasiirka arrimaha gudaha laga dhigay gudoomiyaha xisbiga kulmiye. sidoo kale wasiirka hore maaliyadda iyo waxbarashada Soomaaliya ayaa isna hoggaanka xisbiga kulmiye soo galay Saachin baa soo galay Salmaan Cali Korra soo galay oo dhamaantood wasiirro xukuumadana kamid ah. xisbiga kulmiye marka damaca dhexdooda ka jiray iyo maadaama aynu ka warqabno mar walba inuu gudoomiyuhu isagu musharax yahay ayaa muhmalka keentay in qofkii gudoomiyaha laga dhigo Maxamed Kaahin ahaa wasiirka arrimaha gudaha muddo dheerna xisbiga kulmiye ku jiro asaasyaasha kamid ah inuu uu musharax yahay. marka taageerayaasha Maxamed Kaahin baan oran karnaa sidoo kale taageerayaasha xukuumadda oran karnaa cida bilowday dooda ah inuu wasiirka arrimaha gudaha sharaxay. madaxweynuhu shirka maanta way shirka guddida fulinta mu iimin jirin badankooda maanta laakiin ujeedadii midna waxay tahay inuu leeyahay aniga musharax. okay warba goorma musharaxiinta xisbiyada ee u tartamaya doorashada soo socota 2024 bisha November dhici doonta goorma sharci tahay in la gudbiyo ama la shaaciyo in musharaxiin sidoo qabo qodob kasta xil xidanaad ee xeerka guddida doorashooyinka xeelan barnaamijka maxkamadalkiisa ugu dambeeyay 2023 waxa la qabanayaa liisaska murashaxiinta xisbi kasta inay waajib tahay inuu soo gudbiyo komishanka u gudbiyo xubnaha murashaxiinta uga qayb galaysa tartanka doorasho madaxtooye 45 maalmood ka hor maalintii qabsoomay doorashada oo u dhigantaa bil iyo 15 maalmood. arjigan qoraalkaas oo ay ku lifaaqan yihiin go'aanadii golaha dhexe ay ku soo ansixiyeen murashaxnimada maxaan ku dhahdaayay musharaxiinta u tartamisa xisbigooda. marka mubaarak maxaa saddexdii xisbiyo hore doorashadii madaxtooyada ee 2017 galay ee ucid iyo wadan iyo kulmiye maxaa musharaxiintooda iska bedelay ilaa imika. saan ka warqabno kale xisbiga kulmiye waxa isbedelay musharaxii madaxweyne ku-xigeenka oo wasiirka hadda ah ganacsiga Saachin ayaa murashax ku-xigeen waa sidii burco lagu soo ansixiyay. sidoo kale xisbiga ucid ayaa isaguna murashaxii madaxweyne ku-xigeenkiisu isbedelay walawaan maaragtay la shaacan qofka noqonaya murashax ku-xigeenka Faysal Waraabe laakiin xisbiga wadan murashaxiintiisa isaga waxba iskama bedelin labadii hore dhacay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi iyo Ambassador Maxamed Cali
ayaa sharaxa marka wax isleena wax isbedelay uun labada xisbiya kale xisbiga xaakimka kulmiye iyo xisbiga ucid way labadaba isbedeleen murashaxiintoodii marka maanta ma la odhan karayaa hadalka madaxweynaha marka la sheego waxaa bilowday ololihii doorashooyinka madaxweynuhu waxyaabo badan oo xisbiga kulmiye uu doorashada galiyay uu sheegay marka bilow waxa muuqata miyaa la doorasho boqolkiiba boqol madaxweynuhu wuxuu bilaabay ololihiisii doorashada oo maalmihii la soo dhaafay socday marka loo eego isbedelka xukuumaddiisa meelaha qaar uu ku sameynayay iyo sidoo kale labadii hadalay maanta jeeday madaxweynuhu maanta khudbadii 6 daqiiqo u hadlayay xarunta xisbigiisa oo ka hadlayay laba arrimood buu xoog saaray mid wuxuu eedeeyay xisbiyada mucaaradka oo sheegay inaanay doorashada ku guuleysan doonin sababtoo ah inay dadku ka marag furi doonaan inay yihiin kuwii qaranka dhibaatada u geystay isla markaana aan difaacin wixii qaranka soo gaaray sidoo kale madaxweynuhu wuxuu shaaciyay slogankiisii doorashada oo sheegay in maanta lagu dooranayo difaaca dalka marka waxay u egtay in la isku bareeray isla markaana madaxweynuhu mar kale bilaabay ololihii doorashada madaxtooyada 2024 bisha November ee sanadkan dhici doonta